السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin waa idin salaamay. waa macallin cigaal. insha Allah taala waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo casharada taxana noqon doona oo ah naqtiin ku saabsan maadooyinka maathka iyo fiisigiska fasalka form 4 ee dugsiga sare maadaama waqtigii oo uu soo dhawaaday. insha Allah taala waxaan rabnaa maathkina hadaan ka bilaabo chapter 1 oo ku saabsan analytic trigonometry. ilaa chapter ay ka kooban tahay xisaabta fasalka form 4. insha Allah taala waxaan rabnaa soo koobno chapter 1 analytic trigonometry. chapter walba wuxuu ka kooban yahay unities. ma rabnaa inaan waqti badan kusii bixino diilan hore ayaan ka galaynaa. unitkan waxaa leeyahay 1.1 sum and difference identities for cosine. labadaas qaacida ayay leedahay oo ah sin cos a plus b equal cos a cos b minus sin a sin b iyo cos a minus b equal cos a cos b plus sin a sin b. haddii aan ku celiyo cos a plus b waxay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b ay la mid tahay. weli waxaa kusoo xasuusan karta inaad tirahdid cos sin hadhowna aad raacisid mid walba a iyo b aad raacisid. qaacida kalena waxaa waaye cos a minus b inay la mid tahay cos a cos b plus sin a sin b. isna ayadana sidoo kale waaye markii oo sin a minus b ay tahay dhexda ayaa waxay noqonaysaa plus, markay sin a plus b ay tahay dhexda ayaa waxay noqonaysaa minus. marka waxaa muhiim ah markii halkan la joogo si aan muraajacadan haduu ilaahayd ma aan si fiican u wada fahanno inaad waxaa muhiim ah formulooyinka markasta xasuusnaato oo cutub walba markaan marayno ama lesson walba markaan qaadanayno formulooyin ku jira inaad xasuusnaatid. example 1 waxaan nidhi find the exact value of cos 15 ayaa naloo diray inaan soo helno. marka waxaan leenahay 15 degree waxay la mid tahay 45 degree minus 30 degree oo la simida cos 15 degree dhan waxay la mid tahay markaas cos 45 oo laga jaray cos 30. maadaama ay 15 la mid ahayd 45 oo laga jaray 30 cos 15 intaas ayay la mid tahay. marka cos qaacida ahaan ayaan qoraynaa. marka waxaan leenahay cos 45 cos 30 maadaama cos a cos b ahayd plus sin 45 sin 30 oo qaacida ahaan cos a cos b plus ayaan qoraynaa. marka cos 45 waan naqaanaa waxay ahayd radical 2 over 2 oo lagu dhiftay cos 30 oo ah radical 3 over 2 plus sin 30 ayana waxaa waaye sin 45 waxaa waaye radical 2 over 2 sin 30 na waa half. intaas iskugu dhifsan yihiin radical 6 plus radical 2 over 4 ayaa kasoo baxaysa. su-aasha koowaad halkan waxaan gelinaa haduu ilaahayd wax la yiraahdo coefficient. waxaa lagu yidhi the following identities hold for any angle theta for which the function are defined. waxaa la wadaa cos 90 minus theta that waxay la mid tahay sin theta ayay la mid tahay. sin 90 minus theta waxay la mid tahay cos theta ayay la mid tahay. tan 90 minus theta waxay la mid tahay cot theta. cot 90 minus theta waxay la mid tahay tan theta. sec 90 minus theta waxay la mid tahay cosec theta. cosec 90 minus theta waxay la mid tahay sec theta. marka waxaan leeyahay example koowaad ayaan ka siinaa waxa waaye find one value of theta or x. halka qiimo oo theta ay leedahay ama x uu leeyahay midkii lagu siiyaba macnaha soo saar. hadda waxaan leeyahay anaga cot x inuu la mid yahay tan 25. marka waxaan leenahay cot x kan bedelaynaa oo waxa mid coefficient-kii ahaa tan 90 minus x wuxuu la mid ahaa tan 25 oo cot iyo tan la mid ahay. marka tan waxaan leenahay markaas tan waa soo wareejinayna. marka waxaan leenahay tan 25 tan iyo tan isla bixinayna. marka waxaa meesha kusoo haraya 90 minus x inuu la mid yahay 25. markaan soo wareejino oo aan soo wareejino aan niraahno 9 kan soo wareejino waxay noqonaysaa minus ayay noqonaysaa. minus waxay noqonaysaa 9 in laga jaro oo minus 65 ah minus x kana oo la socdo minus isla bixi meesha waxa kugu soo haraya 65 oo plus